Maalin maalmaha ka mid ah baa tuulo yar waxaa ku noolaa nin xoogsato ah. Maalin walba cara ayuu gurayn jiray, dameerkiisa ayuu ku rari jiray, wuuna iibin jiray si uu nolol maalmeedkiisa uga helo. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo ciidda qodaya, majarfadii waxay ku dhacday shay adag. Isaga oo yaaban ayuu qoday oo helay dhagax dhalaalaya. Wuxuu ahaa dheeman qaali ah, laakiin xoogsadaha wax fikrad ah kama haysan qiimaha dhabta ah ee uu leeyahay dhagaxan. Isaga waxay u ahayd dhagax caadi ah oo iska dhalaalaya. Dhagaxiina qoorta ayuu dameerka kaga xidhay si uu ugu qurxiyo. Maalmo ayaa ka soo wareegay. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo ninkii xoogsatada ah uu tuulada la dhex marayay dameerkiisii, ayaa nin tujaar ah oo tuulada deggan arkay dhagaxii dhalaalayay. Ganacsadaha oo dukaan raashinka lagu iibiyo lahaan jiray ayaa dhaldhalaalka dhagaxu aad ula dhacay. Wuxuuna u yeedhay ninkii xoogsatada ahaa. Waa maxay dhagax dhalaalaya ee dameerka luqunta ugu xidhan ayuu weydiiyey. Waa dhagax dhalaalaya. Waxaan helay anigoo ciidda qodaya. Shaqaalihii ayaa si caadi ah ugu jawaabay. Ganacsadihii ayaa u bogay dhagaxa. Inkastoo isaguna garan waayey inuu dheeman yahay, wuxuu damcay inuu helo. Wuxuu shaqaalihii u dhiibay 5 shilin oo qalin ah si uu dhagax uga iibsado. Shaqaalihii, isagoo u malaynaya inay tahay shay quruxda loo adeegsado, ayaa si farxad leh u aqbalay dalabkii. Ganacsadihii ayaa qaaday dhagaxii oo ku xirtay miisaanka dukaankiisa yaala dushiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa nin dahable ah ayaa booqday dukaanka ganacsadaha. Isla markii ay indhihiisu ku dhaceen dhagaxa, wuxuu gartay inuu yahay dheeman dhab ah oon qiimihiisa la gaarayn. Wuxuu weydiiyey ganacsadihii, waa maxay dhagaxan quruxda badan ee miisaankaaga sudhan? Wuxuu yidhi, waa dhagax dhalaalaya. Waxaan ka soo iibsaday nin shaqaale ah oo aan ka siiyey 5 shilin oo qalin ah. Dahablaha ayaa rumaysan waayey dhegihiisa waxay maqleen. Wuxuu weydiiyey, ma iga iibin lahayd? Ganacsadihii oo u arkay fursad ayaa ku yidhi, hubaal, laakiin waa haddaad i siisid 10 shilin oo qalin ah. Dahablihii baa bilaabay gorgortan oo ku yidhi, waxaan ku siinayaa 7 shilin oo lacag ah. Wax intaas ka badanse ma jirto. Laakiin ganacsaduhu wuu diiday inuu qiimihiisa hoos u dhigo. Wuuna diiday 7 shilin. Markaa dahablihii ayaa go'aansaday inuu halkaas ka tago. Wuxuu ku fikirayay inuu soo noqon doono maalinta xigta oo kala hadli doono heshiiska wanaagsan. Fiidkii dambe, waxaa dhacday in dahable kale uu soo agmarayay dukaanka ganacsadaha. Isla markii uu arkay dheemanka miisaanka ku sudhan, wuxuu gartay qiimihiisa baaxadda leh. Isagoon ka mermerin ayuu ka codsaday ganacsadihii inuu ka iibiyo. Ganacsadihii ayaa mar kale weydiiyey 10 shilin oo qalin ah. Dahablihii si farxad leh ayuu u bixiyey oo ka qaatay dheemankii. Maalintii xigtay, dahablihii hore ayaa soo noqday si uu u iibsado dhagaxii. Markii uu arkay inaan dheemanka saarnayn miisaanka, ayuu weydiiyey ganacsadihii aaway dhagaxii iftiimayey. Ganacsadihii ayaa ku jawaabay, saaxiib nin kale ayaa yimid shalay fiidkii hore oo dhagaxii aan kaga iibiyey 10 shilin oo qalin ah. Dahablihii oo aad u naxsan ayaa ku dhawaaqay, doqon yahow, kaas ma ahin dhagax dhalaalaya oo keliya, balse wuxuu ahaa dheeman qiimihiisu ku kacayo 10 shilin oo dahab ah. Waxaadna ka iibisay 10 shilin oo qalin ah keliya. Ganacsadihii wuu yaabay markuu maqlay hadalkaas, balse in yar ayuu fikiray, wuuna qoslay oo yidhi, aniga maba garanayn inuu dheeman yahay, laakiin adigu waad ogayd. Haddana waxaad weli ku gorgortantay 2 shilin oo qalin ah ood ka tagtay. Haddaba ii sheeg waayo nacaska dhabta ah, ma aniga mise adiga? Dahablaha wejigiisa xanaaq ayaa ka muuqday markuu xaqiiqsaday doqonnimadiisa. Wuxuu lumiyey fursad dahabi ah oo uu taajir ku noqon lahaa gurigiisa iyo doqonnimadiisa darteed. Isagoo qalbi jabsan oo qoomamaynaya ayuu dukaankii ka baxay. Isagoo waddada maraya ayuu bilaabay inuu gunuunaco oo ka shalaayo nacasnimadiisa. Haddaan eegno nolosheena, waxaynu ogaan doonaa inay sheekadani ina barayso 3 cashar oo muhiim ah. Casharka koowaad waa in dhammaanteen aan helno fursado nolosheena qaali ku ah, laakiin inta badan waxaynu luminaa iyaga sababtan waa aqoonsi la'aanteena. Waa inaan fahamnaa in fursadaha aysan na sugin oo ay dhif tahay inay mar kale yimaadaan. Fursadda aan lumino waxay noqon kartaa fursad aan ku horumarino nolosheena, ku samaysano xiriir qiimo leh, ama wax kale. Laakiin mar kastood aqoonsato shay noloshaada qaali ku ah, waa inaad si degdeg ah ugu dhaqaaqdaa ood ka faa'iidaysataa ka hor inta aan farahaaga ka bixin. Aqli xumadu waxay inta badan keentaa qoomamo, sida aynu ku aragnayba sheekada dahablihii koowaad.
Casharka labaad ee qisadan ina barayso ayaa ah in mararka qaar madaxdayga uu ku dhaafin karo fursad aad u weyn. Noloshu waxay u baahan tahay dabacsanaan. Haddii aad si adag ugu adkaysato shuruudahaaga, sida dahablihii koowaad ee diiday inuu bixiyo qiimaha ganacsadaha u sheegay, waxa laga yaabaa inaad lumiso wax aad u qiimo badan. Garaadka iyo maskax furnaanta waxay ku oggolaanayaan inaad ka faa'iidaysato xaaladaha oo aad ka hortagto khasaare aan loo baahnayn. Casharka saddexaad waa inaad si degdeg ah hawshaada u qabsatid. Dib u dhac iyo dib u dhigidda waxay inta badan sababaan in fursadaha la seego. Dahablaha koowaad wuxuu u maleeyay inuu hadhow soo noqon karo oo uu dheemanka sugi karo, laakiin ficilkaasi wuxuu noqday mid uu ku khasaaro. Noloshu si degdeg ah ay u socotaa, fursadahana sidaas oo kale. Haddaad sugto waqti dheer, qof kale ayaa laga yaabaa inuu qaato waxaad rabto. Haddaba ugu dambayntii sheekadu waxay ina baraysaa in nolosha ay abaalmarin siiso ciddii fursadaha ka faa'iidaysata. Noqo mid firfircoon oon hakad gelin fursadaha. Madax adayga iyo dib u dhigista waxay keeni karaan qoomamo, halka aqliga iyo ficilka saxda ah ay gogolxaad u yihiin waddada guusha. Haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, muuqaalkana like inoo saar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Ramadaan mubaarak.